eebo anagu nabada eebo wardigo nabada. بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو دوادا برامج جارة oo kamid ah barnaamijyadii taxanaha ahaa oo idin soo gudbin jirtay hay'adda Soomaaliyeed ee ka shaqeysan nabadda ee Somali Peace Development ama loo soo gaabiyo SPD. barnaamijkeenan maanta waxa uu si gaar ah u daaran yahay ama ku saabsan yahay oo aan uga hadli doonaa xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah ee ka qabaan dambiyada dagaalka. waxaana marti inoogu ah oo su'aalaha inta badan weydiin doono inooga jawaabi doono أبوكات عبد الرحمن محمد حسن أو كم قاعد قانوني أو أريمها لحرير الدنبيد الدجال كان أدو تخصصي مركور أبوكاتها وانسود وين يا كدبنا وحان ويدين دونا سؤال شو قرر رسول إنه جوابي دونه نقول دونتا ومحي دنبيد الدجال ك ياس الدنبيل الدجال نخون كرا أما لا أوران كرا ودنبيل الدجال أبوكات سودو كدبنا حد إنه جوابته سؤال شو قرر رسول aad iyo aad mahadsan tahay dambiye dagaal si guud waxa la yiraahdaa ama lagu qeexaa fal walbo oo ku xusan qodobka sideedaad nidaamka asaasiga ee maxkamadda dambiyada maxkamadda caalamiga ee dambiyada adduunka falalkaas oo hadii la isku soo koobo noqonaya falalka khatarta ku ah nafta qofka bini'aadanka sumcadiisa iyo maalkiisa waxayna isugu jiri karaan sida dilka dib u geysashada oogada qofka caafimaadkiisa sidaas oo kaleeto xabsi ku hayn sharci darra afduub kala sooc iyo cayrin aan ku dhisnayn sabab sharciyeed qofka la eriyo sidoo kale midabta koor iyo baabi'in dad maxaa la yiraahdaa meel ku nool iyadoo loo aanaynayo isirkooda diintooda ama maxaa la yiraahdaa aragti gaar ah ay qabaan sidoo kale burburinta hantida qofka uu leeyahay ee muuqata iyo midda aan muuqan iyadoo ujeedadu ay tahay qofkaas in la gaarsiiyo hadimooyin maxaa la yiraahdaa naftiisa iyo maalkiisa khatar ku ah haddii si kale loo yiraahdo yaa loo aqoonsan karaa ama la dhihi karaa waa dambiile dagaal si guud waxaa jira mabda dhahaya qofna lama dhihi karo waa dambiile ilaa ay maxkamadi ku cadayso inuu fal dambiyeedkaas galay marka dambiile dagaal waxaa la dhihi karaa qof walba oo galay fal kamid ah falalka ku reeban qodobka sideedaad ee nidaamka asaasiga ah ee maxkamadda dambiyada adduunka maxkamadina ku cadaysay inuu galay falalkaas fal kamid ah inuu galay iyo heshiisyada Vienna Geneva ee ku soo baxay 1949 أبوكاتها ما صنتها هي سؤال شيء كتير هاي نقول دونتا dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo kuwa weli maanta soconayaba dadkii ku lugta lahaa ma lagu yeeri karaa dambiilayaal dagaal sideesa lagu cadeyn karaa cidda dambiyada dagaal gashay ama cidda la oranayo waa dambiila dagaal okay aad iyo aad mahadsan tahay marka guud waxaa jira mabda dhahaya qofna lama dhihi karo waa dambiile ilaa ay maxkamadu ku cadeyso sidaas awgeed falalkii ama gabood falladii dalkeena muddadii burburku ka jirtay iyo dhawaanahanba ka dhacay sax waaye waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen dambiyo laga galayay dadweynaha Soomaaliyeed laakiin weli qofna laguma farmuuqi karo inuu dambiile dagaal yahay ilaa maxkamadi arrintaas ku cadeyso si guud ma jirto dalkeena dacwooyin la xiriira arrimaha dagaalka oo ka furan oo maanta la og yahay inay dalkeena ay maxkamadaha dalka hor yaaliin ama xeelaalinta dalku ay galalkaas ay hayaan sidoo kale ma jiraan dad dambiilayaal ah oo aan adduunka u report garaynay ama maxkamadda dambiyada adduunka aan u report garaynay oo aan dhihi karno hebel iyo hebel maadaama ay dalka dambiye ka galeen waxaa loo report gareeyay ama faylkooda loo gudbiyay maxkamadda dambiyada adduunka si ay dadkaas u maxkamadeydo saas awgeed si guud falalkii dalkeena ka dhacay waxaan dhihi karnaa waxay ahaayeen kuwa khatar ku ah nafta bini'aadanka
sumcadda qofka bini'aadanka iyo hantida qofka bini'aadanka. laakiin nasiib daro ilaa maanta ma jirto maxkamadaha dalka qof dacwo looga oogay oo lagu eedeeyey inuu galay fal ka mida falalka ku reeban qodobka 8aad nidaamka asaasiga ee maxkamadda dambiyada adduunka iyo sidoo kaleeto qodobka 223 ee ciqaabta Soomaaliyeed ee ah oogidda iyo abaabulidda dambiyada maxalli ama dagaalada sokeeye. sidoo kale ma jiraan qof ama shakhsiyaadka Soomaaliga ah lagu tuhumayo inay dalkan dambiye ka galeen oo loo report gareeyay maxkamadaha caalamiga ee adduunka si maxaa la yiraahdaa ay tilaabo ku habboon uga qaadaan falalkii ay galeen. markii sharciga caalamiga ah muxuu ka qabaa in lagu dhex dagaalamo ama laga dagaalamaba goobaha ay dadka rayidka ay degan yihiin? goobaha dadka rayidka ay degan yihiin in lagu dagaalamo waa ku reeban tahay xeerarkeena iyo xeerarka caalamiga intaba ay ku reeban tahay. sidoo kaleeto shareecada islaamka aad iyo aad arrintaas ay uga hadashay. waxaan banaanayn in la burburiyo goobaha dadku ay ka wada faa'iideystaan sida masaajida, sida iskuulada, sida suuqyada, sida ceelasha biyaha, sida buundooyinka, sida garoomada, sida dekedaha. waxyaabaha dadka ay bini'aadanka ay noloshooda ay ku dhisan tahay in la ataago ama la weeraro ayaa reeban. sidoo kale waxaa reeban in dad madaniyiin ah ama dad civilian ah in lagu dul dagaalamo dagaalkaasna oo waxyeelo dadkaas u geysto. sidoo kale waxaa si gaar ah shuruucda ay u faraysaa in loo dhowro dadka maxaa la yiraahdaa liita oo u liita qaab maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa aan heli karin waxyaabaha ay uga fakalahayeen goobaha dagaalka sida curyaaminta, sida caruurta, sida haweenka, sida dadka waaweyn. dadkaasna waxay sii leeyihiin priority gaar ah oo ah in la dhowro aana lagu maxaa la yiraahdaa loo geysan fal ama loo keenin wax khatar ah oo naftooda iyo maalkooda iyo sumcaddooda khatar geli kara. waa garta wakaad aad umahadsan tahay. waxaa jira kumanaan Soomaali ah oo ku naf waayay hantidoodana ay ku burburtay dagaaladan cid isweydiisana ma jirto. sidee marka loo heli karaa nidaam isla xisaabtan? sidee sharciga loo horkeeni karaa kuwa gobodfaladaasi ka dambeeyay ama geystay? aad iyo aad u mahadsan tahay. gobodfalada dhacaya khatarta ku ah nafta iyo qofka bini'aadanka hantidiisa sida uu xusayo qodobka 75 nidaamka asaasiga maxkamadda dambiyada adduunka. qofka lagu helo inuu galay mid ka mid a falalka aan u aqoonsanay dambiyada dagaal, haddii qofka lagu helo inuu falkaas galay waxaa waajib ku ah oo maxkamaddu ay ku xukumaysaa inuu soo celiyo oo dib u soo celiyo wixii hanti uu burburshay, wixii hanti uu khasaare u geystay, wixii dhib uu geystay inuu dib u soo celiyo ayaa maxkamaddu ay faraysaa iyadoo intaas la sii raacinayo cuquubada ugu yar oo ah maxaa la yiraahdaa 30 sano xariga ilaa 20 sano xariga ilaa 30 sano xarigana isagoo arrintaas ku mutaysanayo. marka isla xisaabtan horta wuxuu ka bilaabanaa koow in ay jiraan dad u eedeysan inay galeen falkaas. laakiin wacyiga bulshada Soomaaliyeed arrinta la xiriirta ahaataya iyo nidaamka dalka oo koraya arrinta la xiriirta ahaa iyo wacyiga bulshada oo hooseeya arrimahaas aad iyo aad ugu hooseeya la xiriirtaaba ama dadka arrimahaas aad iyo aad u yaqaana ka hadalkooda yar ahaataaba ama saxaafadda oo ka gaabisa ahaaba ilaa hadda maanta lama hayo isla xisaabtan ka horba lama hayo dad lagu eedeeyey ama maxaa la yiraahdaa lagu soo oogay dambiye la xiriira dambiyada dagaalka ee aan wada ogsoonahay ama aan wada arkayno in dalkeenana horena looga galay haddana ay ku socoto. haddiiba la aqoonsado marka dambiilayaasha dagaalka oo qofka la ogyahay inuu yahay dambiile dagaal yaa dacwad ku soo oogi kara marka? dacwad oogidda qofka ku tuhunsan inuu galay dambiye dagaal waxay noqonaysaa laba qaybood. qaybta koowaad in maxkamadaha dalka ay maxaa la yiraahdaa dacwadiisa lagu qaado. haddii maxkamadaha dalka lagu qaadayo waxaa dacwada kusoo oogaysaa xafiiska xiraalinta qaranka ayaa dacwo kusoo oogaysa. isla markaasna waxay qofkii falkaas inuu galay ay ku tuhmaysa horgeynaysaa maxkamadda awoodda u leh. haddii dalku uusan waxba ka qaban karin oo sababta qofkaas inuu jago weyn haayo
inuu maxaa la yidhaahdaa yahay qof aan maxaa la yidhaahdaa jagada ou haayo ama mansabka ou haayo oo ka faa'iidaysada uu ka faa'iidaysanaya aan dacwo lagu soo oogi karin hadduu yahana waxaa loo report garaynaa ama faylkiisa loo gudbinaa maxkamadda dembiyada adduunka xeraalinteeda ayaa loo gudbinaa si ay qofkaas ay dacwo uga soo oogto maadaama maxkamadaha dalka aysan wax ka qaban karin waxaa loo gudbinaa maxkamadaha ama maxkamadda caalamiga ee dembiyada adduunka loo gudbinaa si ay qofkaas dacwo uga soo oogto ciqaabta u mudan yahan ay umarsayso marka bukaataada maasanta qaybii ugu dambeeyey waraysigan ayaan maraynaa waa maxay ciqaabta ay wajihi karaan shakhsiyaadkii lagu caddeeyo inay galeen dembiye dagaal iyaana fulin kara ciqaabtaas lagu xukumayo qof walba oo ay ku caddaato inuu galay dembi dagaal maxkamadda gaar ahaan caalamiga ee dembiyada adduunka hadday qofkaa falkaa ku hesho waxa ugu yar ee uu mutaysan karo waa in lagu xukumo 20 sano oo xariga xadka ugu badan oo qofka uu mutaysan karana waa 30 sano oo xariga sidoo kale wuxuu mutaysanaa hadii lagu helo faldambiyeedkaas inuu soo celisho hadduu hanti khasaariyey hadduu hanti burburshay hadduu dhibaato kala geystay khasaaro maaliyadeed ah hadduu geystana inuu dib u soo celiyo ayay maxkamaddu ku xukumaysaa waa garta marka ugu dambeyn ama su-aasha ugu dambeyso sharciga muxuu ka qabaa cidii taageerta ama guubaabisa dagaalada dalka gudihiisa ka dhaca okay guubaabinta ama taageeridda fal dambiyeedyada dalka ka dhacaya qofka taageera waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay ka qayb qaata dembi sida ku xusan qodobka 223 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo qeexaya ka qayb qaadashada ama abaabulidda fal dambiyeedyada inuu qofkaas noqonayo qof la mid ah ama maxaa la yiraahdaa ku lamaana qofkii fal dambiyeedka tooska ahay geysanayay haddii marka dembigu uu dhaco qofka markuu abaabulo oo hagaajiyo isku dubarido haddii dembigu dhaco sida ku xusan qodobka 223 xeerka ciqaabta Soomaaliya qofkaas wuxuu mutaysanaa dil toogasho ah haddii falka uu abaabulo oo kacdoon uu sameeyo dagaalo sokeeye iyo shidooyin iyo qaribaad uu abaabulo iyo fidnooyin uu dalka ka abaabulana laakiin falku uusan dhicin oo abaabulkaas uusan ka dhalan fal wuxuu mutaysanaa xabsi daa'im arrintaasna waa cuquubo aad iyo aad u weyn oo sharcigana uu ka jidaynayo ayna tahana in maxaa la yidhahda qof walba oo maskaxdiisa ay ku jirto inuu falalka noocaasa abaabulo ama uu ka qayb qaato ama uu asagu horboodo inuu ka reebto ama ugu filan guud ahaan waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ahba waxa ay ka qabaan dembiyada dagaalka barnaamijkan waxaa marti inoogu ahaa oo su-aalaha inooga jawaabayay mahada ka gaartee abukaata cabdiraxmaan maxamed xasan qaanuuni oo si gaara ugu takhasusay amaba ka mid ah abukaatayaasha takhasuska u leh dembiyada dagaalka iyo waxa shuruucda caalamiga ah iyo tan dalkaba uu ka qabo barnaamijkan oo ka mid ah barnaamijyo tixanaa oo idiin soo gudbiyo ama idiin soo gudbiso hay-adda Somali Peace Development ayaan jeclaa guud ahaan intaas kusoo gabagabeeyo tan iyo barnaamij mid kale lamid intaan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo ebo anagu nabada amiin ebo wardigo nabada